gudoomiyaha degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug Cabdinuur Jaamac Ali ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay xaaladda guud ee degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug. Cabdinuur oo kula kulmay magaalada Gaalkacyo gaar ahaan hotel Cadoon ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu ka warramay xaaladda abaaraha sida ay degmadaasi dadka iyo dunyada u saameysay gurmadka ilaa iyo hadda ay gaarsiiyeen guddiga abaaruhu iyo guud ahaanba xaaladda dhinaca nabadgelyada caafimaad iyo guud ahaanba arrimaha bulshada. Cabdinuur Jaamac Ali gudoomiyaha degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug ee Puntland ayaa ugu horreynba waxaan weydiiyay bal inuu faahfaahin naga siiyo xaaladda guud ee degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillahi rabbil caalamiin. aad baa mahadsan tahay waxaan ahay gudoomiyaha degmada Tawfiiq waxa la yiraahdaa Cabdinuur Jaamac Ali Ilkadhax waxaan joogaa magaalada Gaalkacyo runtii shirar kala duwan wasiirka arrimaha gudaha iyo tiimkiisii iyo gudoomiyaha gobolka cusub iyo tiimkiisii waxa weeye iyo degmooyinkii iyo baanu hadda shirkaas isugu nimid ka soo baxnay. waxaan rabnaa waraysiga hadda ay weydiiseen inaan dib u noqdo ka jawaabo. degmada Tawfiiq waa runtii waa degmooyinkii dambe oo dib laga magacaabay Puntland weeye. gobolka waana degmada Tawfiiq gobolka Mudug ayay ka tirsan tahay. waxay u jirtaa 240 kilomitir. waxay xuduud la leedahay Galmudug. cirifka ugu horeeyay Puntlandna way ku taalaa. runtii waxa weeye waa degmo istiraatiiji oo u baahan dhanka dawladda Puntland in lagu fiiriyo indho dheer iyo waxqabad ballaaran oo ay u baahan tahay dadkeeda shacabka iyo maamul ahaan intaba in lagu taageero oo aan u soo jeedin lahaa dawladda Puntland heer wasiir heer gobol iyo heer madaxweyne intaba inay degmadaas iyo degmooyinka kale cirifka la ay ku fiiriyaan indho gaar ah. taasi waa intaas. midda kale runtii markaan ka hadlo xaaladda maanta ka jirta waxa ka jira dagaal sokeeye oo in badan ku soo laalaabtay. dagaaladaasuna waxa weeyaan waa waxyaalaha gobolka Mudug oo dhan haysta bay ka mid noqonaysaa. dhinaca abaaraha 3 sano bay abaar tahay. 3 sano abaarta runtii waxaa jira xoolihii soo guuray sanadkii ugu horeeyay inay joogaan Gaalkacyo degmada Gaalkacyo degmada Jiriiban in badan oo kamid ah oo ay tuulooyinkaas u tahay Gobsho Samsamlo Ceelbardaale iyo Balebusle. marka waxa weeyaan abaartaas ka bacdi way laamin waayeen sanadkii hore saddexaad xoolihii soo guuray ka bacdi abaartii ka dhacday ayay u laamin waayeen. waxa ka jirta abaar ballaaran roob kama diin meel yar oo dhiiqo laga dhoobtayo baa ka da'day. marka iyadana Ilaahay baan ka rajaynaynaa. waxaan leeyahay hay'adaha caalamiga iyo dawladda Puntland iyo guddiga abaaraha inay indho gaar ku fiiriyaan. guddiga abaaruhu waan soo gaaray. waxay keeneen 130 booyadood oo waxa weeye bayna soo gaarsiiyeen. waxayna soo gaarsiiyeen 100 kaar oo ay ka timid hay'adda la yiraahdo Tadaamur. waxaana soo gaarsiiyay misana guddiga abaaraha oo ay markale soo gaarsiiyeen 200 oo qoys oo ayaguna raashin ah. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa intii ka shaqaysay iyo intii bixisay intaba wayna soo gaareen. laakiin waxa meesha ka muuqanaysa faan noole far kama qodna. xoolihii waxa weeye cunno la'aan ayagii baa sida xoolihii loo biilaa. cunno la'aan baa ka dhacday. abaar lixaad ka dhacday. caatiba waa ka dhacay. dadkiina nafaqo la'aan baa ku dhacday maadaama waxa weeye dadku ay ahaayeen dad xoolaha ku tiirsan oo u badan xoolaha dhaqankooda ay wax ka cuni jireen inay iibsadaan inay kawaantaan inay qashaan inay maalaan. markii taa la waayay dadkii nafaqo la'aan baa haysa. taasina waa midaas. dhanka dawladda waxaan oran lahaa degmada aan ka soo sheekeeyo heel istiraatiiji ku taalo weeye. dawladdana waxay u tahay priority caalamiya. waxaan leeyahay indho gaar ah lagu fiirsho wasaaradaha iyo madaxweynaha iyo heer gobol inta ka dhaxle. dhacdooyinka u dambeeyay oo dhinaca ku saabsan dadka deegaanka wada degan walaalow dadkaas deegaanka wada degan waxay ahaayeen dad walaala colaad soo noqnoqotana way yihiin. runtiina waxa weeye waxyaalo badan oo dadku ay ku dandambaabayaan ayaa jira. laakiin xaaladda markii la dhameeyaba soo noqnoqonaysa dibul aadanku hadalhayn waa ku yeelanaysaa. laakiin markii ugu dambeeyay dhacdooyinkii dambe ugu dambeeyay dagaalkii ka dhacay degmadaas tuulooyin hoostaga waxa weeye wuxuu ahaa
runtii dagaal naf iyo maalba ay ku magaciisiyoobeen marka waxa weeye dad baa la qabtay oo ugu muhiimsanaa dadka la qabtayna waa sii deynay waxaan u sii deynay beeshii ay ka dhasheen iyo odayaashii maadaama ay soo noqnoqotay oo dagaalkaas runtii laba maamul ay ahaayeen ka bacdi odayaashaas u sii deynay waxaan ku xalinay inaan labadii beelood ay ka wada hadleen inay yiraahdeen walaalayaal dadkii shuruud kuba xirna waa kan dadkii la soo qabtay laakiin waxaan idinka rabnaa inaan si gooni u wada hadalno oo nabad ah marka ayaguna waa ballan qaadeen welina fadhi ma dhicin oo la iskugu imaan laakiin waxaan rajaynaynaa in nabadda iyo wanaaggu uu naga soo bilowdo labada beelood ama labada deegaan oo ah Tawfiiq iyo Afrawaaqo waana xakameynay dadkaas fariinta la wadaagi lahayd deegaanada wax ka jiraan waxaan la wadaagi lahaa dhan kasta oo ama Puntland ama Galmudug ama labada beeloodba waxaan la wadaagi lahaa warsi nabad ah ayada aan wax ku soo dabaalo oo nabad aan ku raadino labada beelood khaasatan inay si gaar isku arkaan sababtoo ah dhimashada dhaawaca iyo dhaqaale burburka iyo horumar la'aantu ayagay quseeyaan inay arkaan inay nabadu ka fiican tahay colaadda iyo dhibaatada waxaan leeyahay inay ku soo ceshaan buugga nabadda iyo inaan wada qaadano nabadda oo fadhigu gaar u noqdo ka bacdi aan u gudbino cidda danaynaysa maamulada inay maaragtay aad ugu farxaan nabadda meesha ka dhacda aad iyo aad baa u mahadsantahay Maxamed Cabdi warbaahinta dawladda Puntland Gaalkacyo